جهادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا. فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. aynu dib ugu yara noqonay nebi ibraahim calayhi salaam kadib markii uu dabka ka soo baxay waxa uu warkiisii gaadhay dhul fara badan. inta badan bulsho kasta oo uu soo maraaba aad bay u maamuusi jireen oo waxay aaminsanaayeen inuu yahay nin karaamaysan. kuwo badan oo iyaga ka mid ahayna way islaameen. halqadeennii labaad waxa inoo joogtay boqorkii masar oo damaaciyey saara, kadibna uu eebba ka xarimay. nebi ibraahim saarah aad ayuu u jeclaa, waana uu ogaa caadada xun ee boqorku leeyahay. sidaa awgeed waxaa hayay warwar aada u weyn. ilaahay waxa uu ibraahim ka fudeediyey warwarkii oo isaga oo jooga gurigiisa ayaa daaha looga qaaday oo halkaas ayuu kala socday saara oo ka daawanayay iyada iyo boqorkii waxa dhex maray iyo weliba sida uu eebbe u ilaaliyey saara. waxaana uu ugu dambeyntii boqorkii siiyey saara addoon la odhan jiray haajara. sida oo kalena waxa uu nebi ibraahim boqorku hadiyad ahaan u siiyey xoolo fara badan iyo addoomo. muddo kadib nebi ibraahim oo coraysay gabownahayo ayaa masar kasoo guuray isaga oo wata addoomo iyo xoolo aada u fara badan. waxaana uu usoo guuray dhulka barakaysan ee falastiin. markii uu soo galay dhulka la yidhaahdo qowlu saqar ayuu ibraahim luud ku amray inuu dego magaalada dhulkaas looga taliyo ee saduum la yidhaahdo oo ay deganaayeen dul shar badan. waana goorta uu ilaahay u doortay luud inuu ka mid noqdo ergooyinkiisa. qolo budhacda ayaa jidgooyo u galay luud oo ka dhacay wixii uu hanti iyo maal watay, isagiina qafaashtay. markii uu ibraahim warkaasi soo gaadhayna waxa uu isku dubaraday ciidan oo isaga oo wata 318 dagaalyahan ayuu ka daba tegay soona dhiciyey luud iyo hantidiisii. waxa kaloo uu ibraahim laayay budhcadii, firxadoodiina wuu eryaday ilaa uu gaadhsiiyey dimashiq. waxaana uu soo noqday isaga oo guulaystay oo waxaa falastiin kusoo dhaweeyay boqoradii xilligaa ka talin jiray. markii uu 20 sano falastiin yaalay weli si aanay awlaadu u dhalan ayay saara siisay addoonteedii haajara oo ku tidhi, mar haddii aan anigu waxba kuu dhali waayey guurso haajara, waa intaas oo eebbe ubadkaa siiyaaye. ibraahimna waa uu guursaday haajara. bilo kadibna waxay u yeelatay uur, waxaana ay dhashay nebi ismaaciil. intii ay uurka lahayd haajara ayaa waxaa la sheegaa in ay beddeshay dhaqankeedii hore ee ay lahayd xilligii ay addoommada ahayd, ayna isku aragto inay la siman tahay saara, bal ay kaba sii wacan tahay maadaama oo iyadu dhowaan dhali doonto. arrintaas waxaa ka hinaastay saara oo waxay uga cabatay ibraahim. kadibna waxa uu faray ibraahim in ay ku suubiso ciqaab u qalanta gefka ay fashay haajari. haajarena way baqatay oo waa ay baxsatay. iyada oo haajara ku nasanaysa geed har qabow ayuu malagu yimi. waxa uu ugu bushaareeyey in ay dhali doonto nebi uu ilaahay doortay, awlaadiisana uu barakay doono, ayna noqon doonaan kuwo awood leh oo dhulka ka taliya. waxaana uu malagii u sheegay haajara in ay dib ugu noqoto gurigeedii. kadibna sujuudusha ayay eebba ugu mahad celisay, waxaana ay ku noqotay gurigeedii. muddo kadibna waxay dhashay ismaaciil. sheekh abu maxamed bin abi sayd waxa uu sheegay in ay saara ku dhaaratay haajara in ay 3 xubnood ka jari doonto. kadibna uu ibraahim si ay dhaartaasi u fasho ku amray in ay labada dhagood u dalooliso ayna sunnayso. sidaasna haajara waxa ay ku noqotay gabadhii u horreysay ee dhagaha loo dalooliyey lana sunneeyey. saara markii ay aragtay haajara oo dhashay wiil waxaa kusii siyaaday hinaasihii, waxaana ay muddo marba ka codsanaysay ibraahim in uu haajara wejigeeda ka qariyo. kadibna nebi ibraahim waa kii soo raray ee keenay togii ku yaalay baxadsooraha. ibraahim markii uu haajara iyo ismaaciil oo weli yar tog dhex geeyey ayuu kasoo jeestay oo dib uga soo noqday. waana tii haajari kasoo daba cartay ee weydiisay halka uga tegayo, iyadoo ka calaacalaysa cidlada iyo baalla-aanta meesha ka jirta. ibraahim markii uu jawaabi waayey ayay haajari ku tidhi, ma ilaahay baa sidan ku amray? kadibna wuxuu ugu warceliyey haa, oo inta ay sii daysay dibna u noqotay ayay ku tidhi, haddaba ilaahay na dayici maayo. nebi ibraahim dib ayuu u noqday. markii uun cabbaarah sii socday ee uu ka qarsoomay ayuu istaagay oo eebbe baryey, una duceeyey ismaaciil iyo ubadkiisa. sida oo kalena eebbe weydiiyey in uu meesha ka dhigo beled aamin ah oo midho badan. haajaro iyo ismaaciil halkiibay isku keliyeysteen. biyihii iyo raashinkii ay siteenna 2 cisho kadib way ka go-een. warwar weyn ayaa haajaro soo food saaray. waxa ay doontay bal in ay cid iyo bidhaan aragto. sidaa awgeed ayay u carartay oo fuushay buurta safa. kadibna waxba way arki weyday. waxa ay haddana u roortay buurta marwa, iyada oo sidii si la mid ah oo kale wax bidhaan ah iyo wax cid ah arki weyday.
7 jeer markii ay labada buurood marba mid u ordaysay ayay aakhirkii quusatay oo u timi inankeedii oo gaajo la qaylinaya. Ismaaciil waa uu ooyayay oo dhulka ayuu lugaha la dhacayay. waxaa si kadis ah mar qudha halkii uu lugaha la dhacayay kasoo burqaday il biyo ah. Haajara aad ayay u faraxday oo ugu horreyntiiba inankeedii ayay ka waraabisay, kadibna intay iyana cabtay ayay biyihii moostay. qabiil geedi ahaa oo Jurhum la odhan jiray, kuwaas oo ka yimi Yemen, ayaa soo degay meel aan kaba fogeyn halkii ay Haajari joogtay, aadna way u haraadanaayeen. si lama filaan ah ayay meel uga arkeen haad duulaya, waxaana ay isla waafaqeen haadkaasi meel biyo leh inuu joogo, waxaana ay soo direen rag arrintaas soo hubiya. raggii waxa u yimaadeen Haajare iyo wiilkeedii. markii ay cabbeen ayna iswaraysteen kadibna waxay ka codsadeen in ay la soo degaan, waana ay ka ogolaatay Haajari. qabiilkii reer Jurhum sidii ayay meeshii ku degeen, waxaana ay markiiba raashin iyo dhar u ururiyeen Ismaaciil iyo hooyadii, gurina waa u dhiseen. Ismaaciil waa uu koray, waxaana uu noqday nin weyn oo dhalinyaro ah. waxa uu aada u bartay luuqadii qabiilada, sidoo kalena waxa uu ka guursaday gabadh. ilaahay ha u naxariista. Haajarana halkii ayay ku geeriyootay. Ibraahim aad ayuu u jeclaa Ismaaciil, maxaa yeelay waxa uu ahaa curadkiisii. intii uu yaraana keligii ayuu haystay awlaad. markasta boholyowga iyo galgacalka aabanimo ee saa'idka ah ee uu hayo Ismaaciil ayaa uu la ilmeyn jiray. jacaylkaa dartiina waa kii eebba ku itixaamay in uu ulxo ahaan u gowraco, waana kii Ibraahim imtixaankii ku guulaystay. kolkii uu mididii damcay inuu mariyo Ismaaciilna waa kii eebba ugu bedelay wan weyn oo shilis. Ibraahim iyo Ismaaciil waxa ay ku kala noolaayeen dhul aada u kala fog, waayeelnimuna waa u dheereed Ibraahim. culimada taariikhdu way isku khilaafsan yihiin inta jeer ee uu Ibraahim soo boqday Ismaaciil. qaar ka mid ah waxay sheegeen inuu 4 jeer soo boqday, kuwo kalena waxay ku doodaan inuu Ibraahim bureyqa raaci jiray marka uu Maka qabanayo, sidaa awgeedna laga yaabo inuu marar badan soo booqday. Ismaaciil waxa uu noqday nin weyn oo reer leh. waxa uu waqtigiisa inta ugu badan ku qaadan jiray ugaadhsiga si uu ugu soo helo qoyskiisa cunto. sidii caadada u ahaydba maalin Ismaaciil oo ku maqan ugaadhsi ayaa waxa gurigiisii yimi Nebi Ibraahim. waxa uu Ibraahim weydiiyey xaaskii Ismaaciil halka uu seegeedu ku maqan yahay, waxaana ay u sheegtay inuu ugaadhsi tegay. Ibraahim waxa uu haddana weydiiyey xaaladooda iyo sida ay u nool yihiin, waxaana ay gabadhii u sheegtay inay ku nool yihiin duruuf adag, silic iyo dhibna ay u dhan tahay. Ibraahim waxa uu gabadhii ku yidhi, Ismaaciil marka uu ku yimaado salaaniga gaarsii, waxaana aad ku tidhaahdaa gurigaaga albaabka ka bedel. kadibna waa uu iska tegay. Ismaaciil markii uu kasoo noqday ugaadhsigii isaga oo sida hilbo ayaa uu wax dareemay, waxaana uu weydiiyey gabadhiisii in ay coday u timi iyo in kale. waxaana ay u sheegtay odaygii u yimi iyo sida uu u ekaa iyo weliba fariintii uu faray Ibraahim. Ismaaciil waxa uu sheegay ninka u yimi inuu yahay aabihii, waxaana uu gabadhii u fasiray fariintii sarbeeb tahay ee uu Ibraahim ku yidhi gurigaaga albaabka ka bedel, isagoo uga jeeda gabadha fur. sidii ayaana u yeelay Ismaaciil oo waa u furay gabadhii. muddo kadib ayuu haddana Ibraahim kusoo noqday Maka, waxaana uu yimi gurigii Ismaaciil goor uu haddana ugaadhsi ku maqan yahay. Ibraahim markii uu weydiiyey gabadhii Ismaaciil halka uu ku maqan yahay, waxay u sheegtay inuu soo ugaadhsanayo. waxaana uu haddana su-aalay xaaladeeda nololood, waxaana ay u sheegtay gabadhii in ay nololtii u fiicneyd ku jiraan, aadna u barwaaqaysan yihiin. waxa kale oo Ibraahim weydiiyey gabadhii waxay cunaan, iyana waxa u sheegtay hilib iyo biyo in ay ku nool yihiin. kadibna waxa uu Ibraahim eebba u weydiiyey inuu u barakeeyo biyaha iyo hilibka. Ibraahim waxa uu usii faray Ismaaciil fariin oo waxa uu ku yidhi, Ismaaciil salaaniga gaarsii oo waxaad ku tidhaahdaa albaabka gurigaaga hayso oo ha iska bedelin. markii uu Ismaaciil soo noqday ayuu weydiiyey ooridiisii bal in ay cidi u timi, waxaana u sheegtay in uu oday u yimi, fariintaasna uga tegay. kadibna waxa uu Ismaaciil u sheegay ninkaasi inuu ahaa aabihii, fariintuna ay tahay gabadhaada ha furin. kadib Ismaaciil oo jooga tog Maka aan ka fogeyn ayay kulmeen aabihii. kadibna sidii lagu yaqaan wiil iyo waalidkii oo muddo kala maqnaa ayay isku dhegeen oo isdhunkadeen, isna xaal wareysteen. kadibna waxa uu Ibraahim u sheegay in eebbe amray in ay halkan ka dhisaan kabcada. sidii ayay ku bilaabeen dhisidii kabcada. Ismaaciil waxa uu soo gurayay dhagxaanta, Ibraahimna waa uu dhisayey. waqtiyo kooban oo uu soo boqdo mooye, Ibraahim waxa uu ku noolaa dhulka Falastiin isaga iyo ooridiisii Saara. Ibraahim waxa uu aada u jeclaa martida, waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee cid marti geliya. sidaa awgeedna waxa uu had iyo jeer istaagi jiray waddooyinka bal si uu u eego in uu helo cid marti u noqota. haddaba maalin xilli ay tahay gadiidkii ayaa waxaa yimi gurigii Ibraahim 3 nin oo marti ah. Ibraahim waxa uu eegay martidiisii, waxaana uu ogaaday in aanay ahayn dad uu garanayo,
amaba kuwa ku nool deegaamada u dhow dhow. sidaa awgeed waxa uu u maleeyey in ay ka yimaadeen dhul aada u fog, safar dheerna ay soo galeen. waxa uu ibraahim u galay afadiisii saara, waxaana uu weydiiyey wax la cuno in ay yaalaan. iyana waxay u sheegtay seegeedii in ay taallo wax hilib ah oo kasoo hadhay neef adhi ah oo ay qasheen. ibraahim waxa uu saarah uga warramay xaaladda martidiisa iyo in aanay ahayn dad ka yimid deegaamadan dhow dhow, lagase yaabo inay ka yimaadeen dhul aada u fog, gaajo iyo haraad darinana uu hayo. sidoo kale waxa uu u sheegay saarah in aanay wadan faras, dameer amaba gaadiid kale oo ay fuulaan, oo laga yaabo in ay yihiin dad sabool ah oo in badan soo lugeynayay. ibraahim waxa uu u dhaqaaqay jihadii ay xoolihiisu joogeen, waxaana uu soo qabtay oo qalay neefkii loodiisa ugu shishlaa uguna wanaagsanaa. muddo yar kadib waxa uu ibraahim u keenay hilbihii oo si wanaagsan loo soo shiilay, dhir udgoodna lagu soo daray. ibraahim waxa uu soo hordhigay martidii. saarana waxa ay istaagtay meel aan ka fogeyn martida, iyada oo maamuus u muujinaysa, taagnideedaasina ay ka turjumayso wax kastoo ay u baahdaan martidu in ay doonisteeda diyaar u tahay. ibraahim waxa uu ahaa deeqsi aan ka biqin faqriga, oo og in aanu ilaahay dayicin dadka waxbixinta badan leh. inta uu isna soo hor fadhiistay oo bisinka qabtay, cunustii hilibkana bilaabay, ayuu iyaga ku yidhi, idinkuna soo cuna hilibka. wax juuq ah uu ka waayey ibraahim, waxun guri ah ama damac cuntadahina kama muuqan raggii. mar labaad ayuu ibraahim la hadlay martidiisii oo ku yidhi, maxaad u cuni weydeen? si la mid ah sidii hore ayay u aamuseen, cuntadiina aanay dhankeeda usoo eegin. dhaqanka ka jiray deegaanka uu ibraahim ku noolaa waxay ahayd, haddii ay martidu cuntada diido inay cunto, waxa ay maagan yihiin in ay dhibaan qofka guriga leh. waxaana ay taasi ibraahim ku abuurtay cabsi weyn. bayrtii iyo baqdintii waxay kusii siyaaday kolkii uu si waafi ah u dhugtay raggii, ee uu ka waayay wax asaan ah oo muujinaysa in ay safar dheer soo galeen. ma ay wadan waxay fuulaan, mana sitaan alaab iyo sahay kale, xataa dharkooda iyo jodhkooda daalboodh iyo astaan muujinaysa safarin kama muuqato. ibraahim warwarkii ayaa ku siyaaday, oo waxa uu eegay ooridiisii saara, waxaana uu ka fekeray sidii uu addoommadiisii war ugu diri lahaa. maxaa yeelay iminka waa waayeel oo ma awoodo in uu naftiisa iyo tooridiisa ka difaaco 3 nin oo dhalinyaro ah. nimankii mid ka mid a ayaa ku yidhi, ha baqan. kadibna waxa uu ibraahim ogaaday in shucuurtiisa lala socdo, waxaana uu ku yidhi, waxaan idinku sooray gurigayga, waxaan idii keenay cunto, idinkuna ma aydaan cunin, ee ma waxaad ila rabtaan dhib? mid ka mid ah nimankii ayaa qoslay oo ku yidhi, annagu waxba ma cunno ibraahimow, waxaanu nahay malaa'ig, waxaanu ku soconnaa reer qowmulood si aanu u soo halaagno. adigana waxaanu kugu nimi inaanu kugu bashaarayno in aad dhali doontid wiil isxaaq la yidhaahdo, sida oo kalena isxaaq wiilka uu sii dhali doono ee yacquub la yidhaahdo, isagana aada noloshiisa, dhalashadiisa iyo noloshiisaba aada shaahid u noqon doontid. saara oo markii ay maqashay warkaas shucuurteedii xakamayn kari weyday, ayaa inta ay qaylisay oo wejigeedii dhirbaaxday tidhi, sidee ayaa aanu wiil u dhalaynaa? waxaba aan ahay cajuuso 90 jira, odaygayguna waa waayeel 100 jir ah. intii aanu ibraahim hadlin ayaa waxaa jawaabay malagii oo ku yidhi, saara, bishaaradan waxay ka timi ilaahay warkiisa iyo amarkiisuna waa uu fulaa. sidii ayaa uu nebi isxaaq ku dhashay kuna barbaaray. haddaba daawadayaal, aynu xulqadaheena dambe kusoo qaadano dhalashadii isxaaq iyo sheekooyinka la xidhiidhe, bal aynu soo gunaanadno taariikhdii nebi ibraahim. ibraahim waxa uu dhashay xilligii uu talinayay boqorkii dhibka badnaa ee namruud, waxaana lagu sheegaa cimrigii dowladiisu jirtay in ay 1000 sano gaadhiso. waxa ay ahlu kitaabku sheegaan maalin in ay soo baxday xidig iftiinkeedu uu qariyey ilayskii cadceedda iyo weliba kii dayaxa. kadibna arrintii waxa ay warwar iyo argagax ku abuurtay dadkii, gaar ahaana namruud, oo inta uu sixiroolayaashii soo ururiyey ayuu su-aalay waxa ay tahay dhacdadani ama waa daaran tahay muujisadan la arkay. iyana waxay u sheegeen inuu wiil ka dhalan doono dadka ku hoos nool boqortooyadiisa, kaas oo xukunkiisa suulin doono. namruud arrintaas aada buu uga naxay, oo markiiba waxa uu qaaday tallaabooyin hor leh. waxa uu soo rogay amaro dumarka lagu baadhayo, kuwooda uurka lehna laga soo ridayo ilmaha, kuwa dhalayna wiilasha laga leynayo. sida ay sheegaan ahlu kitaabku, qoladii hawsha u xil saarneed ayaa u timi amiila oo ahayd nebi ibraahim hooyadii, waxaana ay taabteen caloosheeda si ay uur uga baadhaan. mucjisaday soo tabiyaan ayaa ah in markii ay caloosha dooda midig ka taabteen, ilmihii ku dhuuntay dhinaca bidix, kolka xagga bidix ay u wareegeenna ilmihii u bedeshay xaggii midig, sidaasna ay ka waayeen gabadhii wax uur ah. si kastaba ahaatee, ibraahim ilaahay ayaa ka dhowray dhib kasta oo cadowgiisu soo qolay. saara waxay dhimatay iyada oo jirta 127 sano, waxaana lagu aasay xabruun meesha la yidhaahdo.
ibraahimna aad ayuu ugu murugooday geeridii saara. muddo kadibna waxa uu guursaday xaas kale oo la odhan jiray qanduura. taariikhahanadu waxay isku khilaafsan yihiin sida uu ibraahim u dhintay, waxaana ay wariyeen sheekooyin kala gedisan. qaarkood waxa ay sheegeen inuu si kadis ah u dhintay tabti suleymaan iyo daawuud oo kale, halka qaar kalena ay ku doodaan inuu xanuun dilay. markii uu ibraahim dhintay da-diisu waxaa lagu sheegaa 175 sano, qaar kale ayaa sheega 190, kuwo kalena waxay ku doodaan inuu jiray 200 oo sano cimri ku dhow. ibraahim waxa uu ahaa nebi fadli weyn leh, aabihii ambiyada, saaxiibkii ilaahay, iyo nebiga ay ku abtirsadaan diimaha samaawiga ah oo dhami. waxaa kale oo uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee marti sooriyeeya, surwaal xidha, raysta, shaarubaha gaabiya, lana gudo da-diisa oo jirta 120 sano, marmarka qaarna la sheego inuu 80 sano jiray. ibraahim waxa uu guursaday 4 dumar ah, waxaana ubadkiisa ugu horaan dhashay ismaaciil oo ay haajaro hooyadii ahayd, waxaana ku xigay isxaaq oo ay saari dahatay. kadibna waxaa ku xigay 6 wiil oo uu u kala bixiyey madyan, samraan, saraj, yaqshaan, nashaq. kilixaadna lama helin magaciisa, waxaana 60 wiil u dhashay xaaskiisii la odhan jiray qanduura. waxaa kale oo ibraahim guursaday xajuun bintu amiin oo iyana u dhashay 5 wiil oo la kala odhan jiray kiisaan, suuraj, amiin, luudaan iyo naafis.